wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa sheegay in xilkii laga qaaday saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya kuwa kalena xabsiga loo dhigay kadib weerarkii ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo ay baaritaano hordhac ay sameeyeen booliiska Soomaaliya. wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaw oo goordhow suxufiyiinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ay kaga falcelinayso weerarkii degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir toddobaadkii hore dabli hubaysan ee dil ugu geysteen xogiyihii ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo wiil ee dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka. waxa uu sheegay wasiirku in wasaaraddiisa ay xilkii ka qaaday taliyihii ciidanka booliiska iyo waliba taliyaha ciidanka nabad sugidda ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir sidoo kalena ay xabsiga dhigeen 12 ka mid ah ciidanka dawladda Soomaaliya oo ku qornaa goobta uu shirka ka dhacay. sidaas oo kale taliyaha ciidanka booliiska ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan ciidanka Soomaaliya xabsiga la dhigay baaritaanna ay socdaan. wasiirka amniga ayaa sheegay in la soo qabtay rag loo malaynayo inay ka dambeeyeen dilkii ka dhacay degmada Xamarweyne iyo gaari ay wateen baaritaanna hadda ay ku wadaan ciidanka booliiska Soomaaliya. wasiirka wasaaradda amniga ayaa toddobaadkii hore maalintii Khamiista hadal oo suxufiyiintu siiyay waxa uu ku sheegay muddo 3 maalmood gudahood in dawladda Soomaaliya ay kaga falcelin doonto ama ay jawaab cad ay kaga bixin doonto weerarkii ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. sidoo kale waxa uu wasiirku sheegay inay socdaan baaritaano kale oo lagu sameyn doono dad lagu tuhmayo in weerarkan ay wax ka ogaayeen ama ay wax ka Soomaaliyeed.